banaadir waxaan garanaynaa waa caasimadii qaranka shalay dastuurka federaalka waxaa ku taalla aqalka sare inuu leeyahay 54 xildhibaan oo ka kooban 18 gobol ee Soomaaliya waxaan ka mid ahay dadkii ka shaqaynayay sida loo dhisay isteediyada iyo baarlamaanka aqalka sare dhismihiisii qaabka loo qaybiyay waxaan wax badan ka hadlaynay oo culayska ugu badan la saarayay war caasimadda Soomaaliya baarlamaanka iskala shaqadeeda waxaan u baahanahay inuu dhammaystiro oo la qeexo maqaamka caasimadda muqdisho wax badan bay inaga mudan tahay maanta inta waaweyn ee wadanka wax ku soo baratay iyo inta waaweyn ee ku soo kortay intuba xamar way garanayaan faa'iidada lahayd iyo caasimadeedu waxay ahayd aan qeexna maqaamka caasimadda waxay mudan tahay magaalada muqdisho inay hesho maqaamka ay leedahay caasimadnimo waxay mudan tahay inay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo meelaha kale si looga baahan yahay oo kale waxay mudan tahay inay yeelato golo deegaan oo wax soo doorta waxay mudan tahay inaan maalin walba loo yeedhin gobernatore iyo maayar intii la keeno la yidhaahdo wixii xisaabe la yidhaha xataa gobolka banaadir baa qaadanayana xafiiska hebel dib ugu soo celiyo gadaal ka soo geli aan la odhanine iyada wax loogu qabto gobolkii lagaga shaqeeyo oo caasimaddu waxay u baahan tahay iyo maqaamkeeda intii la qeexo loo sameeyo waxaan maanta maraynaa caasimaddii oo maanta qof ani iga xiga uuna jiro qof waliba ku waxaysa in la yidhaahdo aleele reer hebel baa xiga oo reer hebel baa diidan wax ka jiraa ma jiraan reer hebel xigaana ma jiro reer hebel diidanna ma jira waxa yaalla waxay tahay waxa ay u qalantay ee maqaamka baarlamaanku shaqada ahayd inuu shalay qabto inuu maanta carcaraafiyo sax ma ahayne waxa maanta ay u baahan tahay muqdisho iyo maqaamka caasimadda ay u baahan tahay ee aan ahayn maalin walba maayar in la keeno iyo hebel in la bedeliyo in la keeno oo council ayna lahayn oo maanta haddii la yidhaha 50 senatar baa leedihiin xataa loo soo qorayo dikreeto loogu soo qaybinayo oo qabiil intii loo qaybiyo laleeyahay saas een la odhanay xataa waryaana dhaqi kara iyo muxuu noqon karaa iyaa dooranaya midna aan la odhanayn inay sax u ahayna dadku ay u arkaan inayna jirin cid diidaysa iyo cid waxaynaysaa intii qof moos la inoo dhigo inaan annaga dhexdeena dhibaato laga dhigin waa shay muhiim reer muqdisho markii la yidhaha anigaa kow ah ma ihi laba kow baan ahay cidda sheeganaysa anigaa kow ka ah waxaan u baahannahay inaan hello matalaadda ay leedahay iyo say tahay anagoo ixtiraamayna wejiga loo rabo in wax loo qabto inay middaas tahay dadka yaan lagu lugoynin oo dan la leeyahay yaan dhibaato kale loogu geysanin oo shacabkii la isugu diro la odhanin reer hebel baale iyo reer hebel baa loo diidaya iyo middaasay sidaa ku tahay waxaan ku soo ururinayaa arrinta federaalka ku saabsan madaxda qaranka madaxweynuhu uu ugu horeeya ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanku ha ilaaliyeen shuruucda waddanka uu ku dhisan yahay ha ilaaliyeen waxa maanta lagu wada joogo waddankeenna innagaa dhisan kara dowlado derisa iyo kuwa dibadda jira iyo kuwa caraba iyo kuwa jarmala midkoodna waxba inooma qaban kareen waxa innaga inoo yaalla aynu qabsanno oo aan ka baxno riyada aan ku jirro ee aan meelaha kale isku tuutuumayno ee wax riixriixayno wax kala jiidanayno intaan ka baxno waddankeenna iyo xaaladiisa aan dib ugu noqonno nasiibkiisu leeyahay qofku doorashadiisa ha u soo istaago